soo dhawaada saaxiibayaal. maanta waxaynu ka hadlaynaa casharkii ugu horeeyey oo aynu ka qaadanayno binary and digital option, gaar ahaan IQ option. waxaan marka isla qeexi doonaa waxa uu yahay IQ option, sida looga trade gareeyo, cidda ka trade gareysa, iyo waxyaalo badan oo ku saabsan IQ option fahankiisa guud. marka saaxiibayaal ku soo dhawaada casharka. waxaan rajeynayaa inaad si fiican u daawataan, xog fiican iyo macluumaad idinku filan idinkana badan aad ka heshaan IQ optionka aynu ka trade garaynayno iyo waxa uu yahay. IQ option saaxiibayaal waa platform kuu fududeynaya in aad ka ganacsato suuqyada sarifka lacagaha qalaad. sidoo kale waa dulaal aad dhiganaysid lacagta aad sarifka ku bilaabaysid. sidoo kale waa meesha ay ku ooleyso faa'iidada aad ka samayso sarifka ilaa waqtiga aad kala baxaysid. waraalka yar saaxiibayaal haddaan soo koobo, IQ option horta waa platform kuu fududeynaya inaad ka ganacsato suuqyada sarifka lacagaha qalaad, oo IQ option la-aantiis uu kugu adkaan lahayd inaad u gudubto suuqyada sarifka oo aad ka ganacsato. sidoo kale saaxiibayaal waa dulaal aad dhiganaysid lacagta aad ku bilaabaysid sarifka. inta aadan sarifka bilaabin lacag yar ayaa lagu bilaabaa. IQ option waa dulaalkii aad dhiganaysay lacagta aad ku bilaabaysid sarifka lacagaha qalaad. waayahay saaxiibayaal, IQ option waa meesha inta aadan lacagta la bixin ay kuu ooleyso. lacagtaada marka aad la baxdid faa'iidada aad ka samayso IQ option iyo suuqyada sarifka, inta aadan la bixin waa meesha kayd kuusii ahaanaysa ee aad lacagtaada kusii xifdisanaysid. waaya haddaba saaxiibayaal, yaa inagula jira suuqa kan, suuqan sarifka iyo platformkan IQ option yaa inagala trade gareeya oo sideena faa'iido ka raadiya. kow waa suuqyada, waa bangiyada dowladaha oo bangiyada dhexe ee dowladaha ah ayaa ka raadiyay suuqan faa'iido iyo ribx, iyo weliba dowladaha iyagoo adeegsanaya bangiyadooda dhexe. waayahay sidoo kale bangiyada privateka oo ah bangiyada gaarka loo leeyahay ayaa ah iyaguna kuwa faa'iido ka raadiya platformkan ama suuqan. sidoo kale shirkadaha gaarka loo leeyahay sida shirkadda Facebook, shirkadda Twitter, shirkadda Tesla ee gawaarida soo saarta, iyo sharikaadka waaweyn ee adduunyada ayaa sidoo kale lacagahooga suuqan la soo gala si ay faa'iido uga raadiyaan. waayahay hanti maamulayaal ayaa iyagana ka mid a dadka suuqan lacagta faraha badan ka sameeya. hanti maamulayaal markaan ku leeyahay hatcheries ayaa loo yaqaanaa luqadda qalaad. waa dad 25 years, 30 years, 35 years ilaa 40 years oo khibrad ah haysta oo ay suuqyada sarifka lacagaha qalaad kusoo dhex jireen ama ka shaqaynayeen. dadkani marka waxaa lacagta u dhiibta dad aan iyaga suuqan sarifka sida looga trade gareeyo aqoon, ayaa lacag billions, millions iyo trillions u dhiibta si ay faa'iido ugu sameeyaan. waa hanti maamulayaal. marka dadkan hanti maamulayaalka ayaa iyagana ka mid ah dadka suuqan ka trade gareeya. dadka kale iyaguna faa'iidada ka raadiya waxaa ka mid ah dadka shacabka. dadka shacabka waa inaga, waa aniga iyo adiga oo kale, iyo dhammaan dadka kale inala midka oo kale ayaa iyaguna ah dadka suuqan faa'iidada ka raadiya oo ka shaqaysta oo lacag ka sameeya. waayahay hantida dhex taalla marka suuqa kan imise ayay gaaraysaa, maadaama dowlada ku jiraan, bangiyo dhexe ku jiraan ee dowlado, bangiyada gaarka loo leeyahay ku jiraan, sharikadaha gaarka ee dhaqaalaha aadka u badan haysta ay ku jiraan. hantida suuqan dhex taalla imise ayay gaaraysaa. saaxiibayaal, suuqan waa suuqa ugu weyn ee lacagaha qalaad lagu kala sarifto adduunyada. waxaa maalin kasta lagu kala faa'iidaa ama dhex marta hanti gaaraysa 7 trilyan oo dollar ayaa every single day dhex marta suuqan oo lagu kala faa'iidaystaa. waad dareemi kartaa marka meel hal maalin oo keliya, halka maalin 24 saac oo walba 7 trilyan oo dollar lagu kala faa'iido inta hantida dhex taalla ay leegtahay. saaxiibayaal, waad dareemi kartaa. sidoo kale waad dareemi kartaa lacagta aad adiga ka samayn karto inta ay la ekaan karto haddii aad suuqan waqti iyo jaanis iyo juhdi iyo barasho iyo xirfad iyo practice fara badan aad siiso. marka saaxiibayaal, suuqan waxa uu furan yahay 24 saac ee 5 maalmood ee shaqada. marka laga reebo sabtida iyo axadda
shanta maalmood ee kale 24 saacadood oo walba oo shanta maalmood ka mid ah suuqan waa open, waa furan yahay. daqiiqad walba oo 24 saacadood ka mid ah ee shanta maalmood ayaad shaqaysan kartaa, marka suuqan lacag ka samayn kartaa. way maxaad u baahan tahay marka si aad suuqan lacag ama faa'iido uga samayso? waxaad u baahan tahay si aad suuqan lacag uga samayso, kow waxaad u baahan tahay internet ayaad u baahan tahay. oo internetku waa waxa koowaad ee ka caawinaya inaad suuqan sarifka lacag ama ribix ama faa'iido aad ka samayso. waxa labaad u baahan tahay waa laptop, waxa ugu dambeeya u baahan tahayna waa mobile. saddexda haddii aad hayso oo saddexda ay gacanta kugu jiraan, suuqa waa ka shaqaysan kartaa. kaliya waxa ka dhiman xirfadii ama cilmigii aad suuqan lacag uga samaysan lahayd. sidee faa'iido looga sameeyaa marka suuqan? waxaan soo baranay suuqan waxa uu yahay hantida dhex marta inta ay leegtahay dadka ka trade gareeya waxyaalahaas oo dhan, waxyaalaha lagaaga baahan yahay sidoo kale inaad suuqan lacag ka samayso. marka sidee faa'iido la taaban karo suuqan aad uga samaynaysaa? kow waxaad raadsanaysaa labada lacagood ee aad isku sarifaysid. tusaale GBP USD, Great Britain Pound lacagta Ingiriiska iyo lacagta USD oo dollarka ayaad isku sarifaysaa. labada lacagood ayaa dooranaysaa. marka lacagaha adduunyada oo dhan ayaa meeshan ku jira. tusaale marka labadan aan ka soo qaadanay inaad lacagta Ingiriiska iyo lacagta dollarka aad dooratay. markaas GBP oo ah lacagta hore, labada lacagood lacagta hore waxaa loo yaqaanaa base currency ayaa loo yaqaanaa. USD oo ah lacagta dambe, labada lacagood ta dambena waxaa loo yaqaanaa code currency ayaa loo yaqaanaa. waaye lambar 2 waxyaalaha faa'iido uga samayn kartid. qodobka labaad wuxuu noqonayaa sarifku waxa uu ka dhacayaa platformka, waxaadna adeegsanaysaa internet. macnaha waxyaabihii kuu fududayn lahaa inaad suuqan lacag ka samayso, platformka ayuu sarifku ka dhexdhacaya. waxaana kuu fududaynaya internet. macnaha without internet sarifka ma samayn kartid. waaye waxyaalaha kale waxa expiration date wax la yiraahdo oo ah practical, iyadoo aan doonayo inaan casharada dambe ku qaadano. expiration date waxa weeye waqti intee leeg ayuu sarifku marka aad platformkan IQ optionka joogtid. forex-ka kale lama mid aha oo expiration date waxa weeye faa'iidadaadu waxay ku xirnaanaysaa, it depends on a time ama waqti ayay ku xirnaanaysaa. expiration date-ku marka waxa weeye saaxiibayaal waqtiga sarifka uu dhacayo ama waqtiga sarifkaagu uu ku egyahay waxa loo yaqaan expiration date. insha Allah practicalna casharadana dambe ay ku qaadanayna. candle time period isagana waxa loo yaqaan halkii candle sticks oo aan ku soo qaadanay casharkii hore oo YouTube-kana aan soo geliyo aan filayo. candle stick waa halka candle ee cagaarka ama casaanka ah, ama bullish candle ama bearish candle ama kor u socda ama hoos u socda. candlekaas ayaa time period-ka waxa loo yaqaan waqtiga uu candle ku soconayo. waaye chart tape isagana waxa loo yaqaan chart tape-kaagu nooca uu noqonayo. maxarrijimo ayuu noqonayaa, ma waxa weeye candle sticks-ka caadiga ayuu noqonayaa, ma wuxuu noqonayaa waxyaalahan kale oo chartiga noocyadiisa ka mid ah. chart tape isagana waa baranaysaa nooca chartigaagu ama candleskaagu ay noqon doonaan. waaye tan shanaad iyadana muhiimka waxa weeye trading history, yacni inaad trading history aad eegto lacagodan lacagooda isku sarifaysid. sarifka aad hadda gelaysid ka hor lacagtan xagee u socotay, lacagtana miyaa la iska iibinayay mise waa la soo iibsanayay, ma hoos oo down trend ayay ahayd mise up trend ayay ahayd, lacag kor u socotay mise lacag hoos u socotay ahayd. waqtigeedii hore lacagtan forecastigeedii hore ayaa saadaalinaysa lacagtan waxa ay ku socotay maxay ahaayeen. waxyaalahan oo dhan saaxiibayaal si toos ayaynu isla eegi doonaa practical insha Allah cashar ku xiga. hase ahaatee hore ayaynu uga soconaynaa. waxyaalaha kale oo saaxiib iyagana muhiimka waxa ka mid ah in suuqan daba ilaa dacal fundamental ahaan iyo technical ahaan aad analyze garayso oo si fiican aad uga baaraan degto inta aadan waxa weeye sarifka bilaabin. waayahay casharkeena koowaad ee ku saabsanaa IQ optionka saaxiibayaal, inta ayna soo gabagabaynin dadka marka saaxiibayaal suuqan ka trade gareeya ee shacabka ah retail traders ayaa loo yaqaanaa. retail traderska marka goorma loo ogolaaday suuqa inay soo galaan? retail traders waxa weeye dadka shacabka ee suuqan ka trade gareeya. awal waxaan soo sheegnay dadka suuqan ka trade gareeya inay ahaayeen bangiyada dowladaha, hay'adaha waaweyn, sharikaadka waaweyn, bangiyada gaarka loo leeyahay, hanti maamulayaal ama hatcheries waxa loo yaqaan waxa weeye lacagta badan ku trade gareeya. dadkeena shacabka marka aniga iyo adiga oo kale ah goorma ayaa suuqan loo ogolaaday? waxaana loo yaqaanaa retail traders ayaa loo yaqaanaa. waxa suuqa loo ogolaaday saaxiibayaal shacabka caadiga ah waxa loo ogolaaday 2006
2006 qof lacag buuran oo lacag weyn haysta maahane qof kale suuqan macna access uma lahayn inuu ka trade gareeyo oo lacag kama raadinayn 2006 ay wixii ka horeeyay kuma jirin 2006 wixii kadib ayaa loo ogolaaday markaas ayaan fursadan helay aniga iyo adiga iyo dhammaan dadka shacabkeena la midka ee lacagaha billions iyo millions aan haysan ee lacagaha kumanaanka dollar ama ka yar ama boqolaalka dollar ku trade gareeya marka saaxiibayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayna casharkeena koowaad ee ku saabsanaa waxa uu yahay IQ option ama uu yahay platformkan anaga ka trade gareyno thank you saaxiibayaal dhamaantiin guul ayaan idin rajaynayaa casharada ku xiga inaad si wanaagsan oo qumana qurux badan aad la socotaan waa mahadsantiin. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.